dhaqaalaheena inaynu dhowrtaa dhaqaalaheena inaynu dhowrtaa nolosheenu ku dhisanteen kulan wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga Al-Xurriya waa barnaamij toddobaadkiiba laba mar aad ka daawan doontaan janaalka Al-Xurriya News toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa suuqyada lagu iibiyo dahabka ee magaalada Muqdisho ayaa isbedel uu ka muuqanaya qiimaha la kala siisanayo dahabka qaybihiisa kala duwan ganacsatada dahabka keenta waxa ay sheegeen in isbedel ballaaran xilligan uu ku yimid qiimaha la iibinayo dahabka qaybihiisa kala duwan waxaana sare u kac uu ka jira qiimaha la kala siisanayo noocyada kala duwan ee dahabka ee loo iibkeeno suuqyada magaalada Muqdisho maxamed oo kamid ah dadka ka ganacsada dahabka ayaa Al-Xurriya News u sharaxaya isbedelada xilligan ka jira qiimaha dahabka horta maalmahan dambe dahabka isbedel xoog leh ku dhacay oo sabab kaca ana soo malayna markaan eegnay siyaasadahan adduunka isdiidan ma arkay khilaafaadka inuu saameeyo malayna dahabka aad iyo aad isku bedelay marxalad badan baa soo marnay mar waxa la gaaray in halka laga qaado dahabka duwi loo beegeeyo laakiin sicirka aad u kacsan yahay dalalkii laga keenayo dahabka miyaa sicirkooda aad uga kacsan yahay qiimo sare ku soo qaadaan mas'alad kale leh wallahi meesha laga soo qaadayo cirka kale falaartii cirka marayso kor socoto waxaana sabab u ah isleeyahay markii xoogaa ma duglaasida xoogaa kacsada aduu kacsan iyo ama jawaadi xala dhacaan ayuu aad u saameeyo dadku dahabka aad u qaataan marka heer hadda wuxuu gaaray qiimo aad ugu sareeyo maraya dalal badan baa dahabka laga keenaa kuwaba ugu raqiisan hadda la oran karaa marka la eego dalalka dahabka laga keenaa wallahi dubayga nagu jaban nooca dubayga nagu jaban oo hadda 45 baa siinaan beeciisu saasaan nagu jaban laakiin kuwa kale kasii qaasiin waxaad dulmar ugu samaysaa qiimaha la iibinayo dahabka qiimihiisa kala duwan iyo dalalka aad ka keentaa dahabka Singapore lahaa ayaa ku qalsan $48 baa siinaa garaamkiisa dubayga 45 jidada iska 46 xogaa door baa u dhaxeeyo isku dhow yihiin jidada dubay aad isku dhow yihiin laakiin taa ku qalsan waa Singapore sidoo kale dahab Turki ah oo suuqyada yimaadaan ugu maqaalaa halka waran waliyo suuqa dahabka waa jira Turkiga laakiin dadku ma jeclo maxaa waaye midabka cadaanka ku badan way wadadka wadada Yurub iska ah waxaa waaye weedka ka dhigaa dahabka cadeeya marka cadaanka dadku ma jeclo waxay jecel wax guduudan ay dahab hal u arkaan qiimahan marka meel uu joogaa ma yaasoo qiimo sida fatawa sida laakiin aad looma qaato lama jeclo qofka keen muddo u yaalayaa waxa waa midabkiisa cadaan ku jira qiimaha hadda la iibinayo iyo qiimaha markii hore la iibinayo farqi badan baa u dhaxeeyo dahabka marka anagoo iibinayna 42 baan iibin jirnay iyo 44 maanta $4 baa garaamka u dhaxeeyo ku soo kordhay markii isbedel labaadna waa jiraa dadka maanta suuqa dahabka keenaya dahabkii laba nooc u kala baxay mar dahabka ayaa la iibsanayaa soconayo marna dahabka suuqa asaa soo galo hadda dahabka socda ee la iibsanaya xaafadaha laga soo qaaday aad u socdo waxaana kalifaysa qiimihiisa wuxuu gaaray 40 iyo 1 loo qaado qofkii sita dahab jabano iska bagaash iyo haduu dahabada guriga u yaalo waxay u kalifaysa qof kasta wuxuu isleeyahay dahabkii maadaama uu kacayo 40 lagu qaadayo xabad laga qaadayo lacagtaada ku dareyso ama dhismo guriga ku dhisto ama dhulka ku iibsado ama shirkada ku darsado sida badan kaaskii ay aad loo qaataa xoogga dahabka markii la yiraahdo xageeb weyn ka geeymaada dalalka ugu xooggan dahabka si soo duula ka soo adeegana anaga dubayga marka saddex shirkadood bay yaalaan saddex wadan way yaalaan waa isku qiimaha marka la duwano meesha ka soo adeegana anaga dubayga dahabka noogu baa xooggiisa waxa intaas ku sii dheer muddo laga joogo 3 wiil waxa lagu soo furmay suuq cusub oo ah Hindiya la tasoo geeyo dahabka dad baa ka yimid Nairobi lacag sita waxay doonayaan dahabka wadanka sii yaala jawaana ma xaafadaha yaala inay qaadaan Nairobi geeyaan Nairobi si loo Hindiya u dhoofinayeen kaasoo sicirkaas oo inuu qaco 40 gacan u gaaro sabab uu suuqa cusub soo kordhay hadda waa shaqada dahabka ka waran iyo suuqa sidoo kala socday waa buu fiican suuq shaqadiisu aad buu anoo kicitaanka dan noo absida badan ba markuu jaban yahay qofka keen ma qancayo waxa laga yaabaa inuu garaanka ugu fadhiyo $42 marka uu suuqa keeno waxa laga yaabaa in 35 marka la yiraahdo cala garaam uu qasaariyo $9 ama $8 qofkii dib u ceshanaa marka حتى الداب اللي سوق علينا يسوق اللي كينا يدك كينا ينبع سوق كبدن كي إيمانه هنا وبدنيا سجنا بالكورة نصو معاش كين هلقا لما ديك الرسول بعيسى ما يروح معاش الله وصل عمشت سركع ما يد مشت معاش وصل لعه maxaa keenaya sababtoo shaqadii baa kala socotaba qofkii kii keenay daab keenay uu qanacsiyo wuxuu ku qanacsiyaa qiimaha laga siisanayo looga qaadayo uu qanacsiyo
kan laga siiriyay waa ka difference ayay u dhaxeeyo 42 ama 40 loo qaaday kan gatana 45 ku qaato dadka dahabka keena ma bedel bay sameynayaan mid cusub ay gadanayaan mise way iska soo celinayaan wallahi ni waxa la habar meeyay istimorada garta inta badan wuxuu badan yihiin dahabka guriyuhu yaala inta badan lacagta lagu keensada laakiin marka ay maqlaan suuqa waa kacay iyo qofku xasuusanaya guriga markii jabar iyo isma daacatir guri iyo ama soo xasuusanaya qofka inta badan dahabka nooy u badan yahay loo keenaa suuqada loo keenaa dad ku xayiran guriga iyo taariikh galay taariikhda ku xariiqay inta badan dahabka loo keenaa marka qofkaas guri wax uu yaalo kugu soo qaadaya dan u soo qaadaya danka canshuuraha iga warqayo ayaga laftirkooda saameyn ku leeyahay wallahi waxa marka hore lagu cusbaayeen waxa la helgabintu markuu ku horleeyo kugu daran yahay maalin hore waa cabsi jirno canshuurta laga daayay waa lagu badan jaakada waa la qabsanay Soomaalida waxay dawladdu leedahay marka hore qaylisaa marka dambe wallahi qad waxba hadda dhibaato lagu haysto canshuurta laakiin marka hore galaankina waa saaray lacagta badan waa saaray qalbaka looga fariisto aad buu noo saameeyay maya maxaa hadda lagu hayo walaas wax daran walaas saas lagu weyn lagu hayo walaas benti bal ka waran suuqa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo hadda waxyaabaha aad rajeynaysaa la hada laba kun hadda suuqa bishii sabta ku dibasta ugu jira sanadka cusba hadda baa saxir la gelaya qof uu helay iyo macaash dib u fiirinaya laakiin dhaqdhaqaaq waa fiican dhaqdhaqaaqinta suuqa dahabka noo kacay aad buu noogu fiican guud ahaan daawadayaal waa naga intaa barnaamijkii bandhiga alxuriya oo toddobaadkiiba 2 mar halkan aad ka daawataan intaan dib dambe barnaamijkan lamid ugu kulmi doono nabadgelyo dhaqaalaheena inaynu dhowrtaa nolosheenu ku tiirsantee